munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay qasriga madaxtooyada Soomaaliya ujeedadeeduna waxa ay ahayd in la iclaamiyo dhismaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo dhawaan la doonayo in maamul si rasmi ah loo yagleelo waxaan halkaasi lagu saxiixay dhismaha maamulkaasi madasha waxa ku sugnaa madax kala duwan oo ay ugu horeeyaan madaxda qaranka sida madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wasiirka ka tirsan xukuumadda danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wakiilka urur goboleedka IGAD madaxweynaha maamulka Galmudug xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ururada haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale marti sharaf lagu soo casuumay ka soo qaybgalka munaasabadan waxa halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in nidaamka federaalka si rasmi ah dalka uu uga dhaqan gali karo haddii shacabka iyo xukuumaddu ay midoobaan waxa uu ka hadlay muhiimadda ay u leedahay in maamulka ku meel gaar ah dalka laga yagleelo iyo all protocol observed ama sida Soomaalidu tiraahdo qof kasta meesha salaanta ugu jiro oo mahadsantiin soo dhawaada runtii anaga taariikhda noo tahay maanta sababtoo ah waxaan soo gabagabaynaynaa ama soo afjaraynaa dadaalkii loogu jiray in dalka kan ugu dawaalo wadaha federaal waxyaabaha runtii maanta aan aad ugu faraxsanahay runtii xukuumaddan iyadoo 6 bilood jirta in ay soo qabatay inay dhamaystirtay dowlad goboleedka Galmudug haddana ay bilaabayso dowlad goboleedkan loogu maanta si xaalka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee noqon doonto Soomaali inay u dhisay qaab federaal ah dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjira Nicholas Kay oo isagu si weyn u taageeray dhismaha maamulada dalka waxa uu aad ugu hamuun qabaa hirgelinta nidaamka federaalka iyo maamulida gobolada dalka we will make sure that the people of Hiiraan and Middle Shabelle receive the support they need sida aan horey u taageernay maamuladii kale oo la sameeyay qaramada midoobay iyo bulshada caalamka ah waxay taageerayaan geedi socodkan maamulka lagu suubinayo reer Hiiraan iyo reer Shabeellada Dhexe iqtisaadiyan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba ayadoo la raacayo PSG waa peace building peace building process jira marka waa United Nations bulshada caalamka waa taageerayaan وانا الله مرة peace building process peace building institutions كاس إذا الله مرة ولا تغيير دقالها سياسة I think I'm learning to understand Somali now. Important vocabulary such as peace building. I'm almost fluent. PSG. So I mean, my final message and thought from the processes you have followed until now is the very important point that in a process like this, nobody gets everything they want. Nobody will win everything they want. But there will be a winner, and the winner will be Somalia. Somalia will be a stronger, more united, federal and more peaceful country. So good luck with the process, and I look forward to 1st of December attending the inauguration of the new president in the new capital to be decided. Thank you. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagu waxa uu sheegay inay aad u wacan tahay hirgelinta hanaanka dawlad dhisida gobolada dalka waxa uu sheegay maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe la doonayo in loo sameeyo inay astaan wanaagsan u tahay in dawladdu ay ku guuleysatay hirgelinta hanaanka dawlad dhisida gobolada dalka maadaama hore ay u soo dhistay maamulada Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Galmudug gabagabadan uu yahay qorshaha in la yagleelo maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo qabanqaabadii ugu dambeysay ay socoto dadka Soomaaliyeed ee ay culaysadii dhibaatada ka soo gaareen dagaalada soconay waa ku meel gaar dib joogta ma aha ilaahay idinkiis waan ka gudbaynaa laakiin markii meel dagaal ka dhaco aan garanaynaa dagaal baraka uu leeyahay dhimasho uu leeyahay dhaawac uu leeyahay oo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada degan soo gaareen
mar walba waan ku ballanay waan ku wada hadalnaa waan kula hadlaa madaxda iyo mas-uuliyiinta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM in aad iyo aad loo ilaaliyo inta la ilaalin karo suurtagala in dadka Soomaaliyeed dhibaatada soo gaaraysa zero laga dhigo aanay dhicin oo aanay dhicin ama inta la yareyn karo la yareeyo haddii laga fursan waayo dabcan waxaa la ii garantigareeyay wax ula kaca inaanay dhici doonin taasna muxuu ahay la yareyn doono wixii collateral ama dhibaatada dhinac socota dagaalka oo aan naqaano laakiin waxaan rajaynaynaa muddada dheer dagaalkaasi inuu soo koobnaan doono mar kale dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan si gaar ah u leeyahay hambalyo dadka ku nool gobolada Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo aan leeyahay waa cusub ah idin bilowday waa dadaal ku soo gaarteen halkan inta dhimanna dadaalkaas ku dara aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin saaxiibadeena caalamka ah na dhammaantiin waa mahadsantihiin sidii aad laga bartay oo aad Soomaaliya u garab taagneedeen inta dhimanna u sii garab taagnaada diblomaasiyaddu waa mahadsan yihiin dhammaantiin maxaan ku ihahday kasoo qaybgalkiina wuxuu noo yahay sharaf iyo karaamo iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum si kastoo yahaataba isku soo wada duub qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee kaga aadan hirgelinta nidaamka federaalka ayaad moodaa inay ku guuleysatay maadaama maamuladii dalka oo dhan ay ka hana qaadeen waxaana ugu dambeeya oo qorshuhu yahay in maamul loo sameeyo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo qabanqaabadii ugu dambeysay ay socoto iminka عيدروس محمود إيمان تلفزيون كصومالي نيوز مقالة المقدسة